hooyadu waxaa loo baahan yahay inay diyaar garow weyn ay ku jirto. barnaamijka dhiirigelin hooyo waxaan ugu talagalay hooyadu inay wax barato, caruurteedana ay wax barto. hooyo baraarugsan ayaa noqon karta hooyo macalimada, hooyo baraarugsan ayaa noqon karta murabbiya. Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka Waanada Qoyska. kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aan kaga hadli doono waxbarista ilmaha ka yar 5 sano qaybtiisa labaad. mowduuca hore waxaan kaga hadlay hooyo walba inay awoodo inay wax ku bari karto guriga ilmaha 5 sano ka yar, ay adeegsan karto qaab fara badan ee ka mid ahaayeen warqadan xuruuful hijaaga. ayadoo guriga joogto inay ku bari karto warqadahan daabacan, aad soo daabacan karto xuruuful hijaaga, lambarada ilmaha isbuuca iyo kalarada. taa waxay furfuraysaa ilmaha yarka maskaxdooda, waxayna u diyaarinaysaa inay ilmaha noqdaan ilmo u diyaara inay wax bartaan. ilmaha yar waxay ku dhiirigelinaysaa inay noqdaan ilmo fahma qaabka waxbarashada. u diyaarinta madrasada iyo xanaanada waa muhiim. waxaan ugu talagalay mowduucan midkii ka horeeyay ee gogol dhiga ahaa in hooyo walbo ay fahmi karto ilmaheeda yar ee wax bari karto. ilmaha yar ee guriga jooga ka hor intaan madrasada la geynin, hooyo walbo in ay ku baraarugtaa ilmahaas yar inay wax barto, in ay u diyaariso madrasada, xanaanada caruurta. ilmahaada oo yar oo aad guriga ku soo bartay xuruuful hijaagi, Arabic alphabetka aad guriga ku soo bartay, u diyaarisay madrasada asigoo yaqaano sida qalinka loo qabsado, aadaabtii waxbarashada. hooyo walbana waxaa loo baahan yahay inay fikirto, inay diyaar u noqoto, inay ku baraarugsanaato ilmaha yar guriga jooga ee waqtiga haysta intaan madrasada la geynin ka hor, in ay wax barto, in ay ayada wax barto, ayada u diyaariso qalinka sida loo qabsado, u diyaariso buugga sida loo qabsado, u diyaariso fahamka oo dhan ay fahmi karaan, u diyaariso wax walba ayada bilow cusub ee u sameyso si hooyadu ay u noqoto murabbiya. hooyo walba wax walba way awoodaa hadday isku daydo. hooyaduna waa inay fikirtaa, waa inay raadisaa wax waliba oo ilmaha yarka ah u biloobi kara, maskaxdiisa iyo garaadkiisa korin kara, waxbarashaduna u firfircoonaysiin kara. hooyadu waxaa loo baahan yahay inay diyaar garow weyn ay ku jirto. barnaamijka dhiirigelin hooyo waxaan ugu talagalay hooyadu inay wax barato, caruurteedana ay wax barto. hooyo baraarugsan ayaa noqon karta hooyo macalimada, hooyo baraarugsan ayaa noqon karta murabbiya. hooyo soo jeeda oo diyaar u ah inay ilmaheeda wax barto, mustaqbalkooda ka fikirto, nafteeda inay bedesho. barnaamijkan waa barnaamij noo soconaya, muuqaalo kale badanna waan kasoo sameyn doonaa insha Allah. barnaamijkeenu wuxuu noo noqon doonaa barnaamij taxane ah oo aan ugu talagalnay caruurta yaryarka ah oo guriga jooga waxbaristooda. barnaamijkan kama marna barnaamijkii hore ee dhiirigelin hooyo, waan ugu talagalay inay ayad wax barato, inay ayad is hormariso, inay jadwal sameysato, inay qorshe la imaado, inay nafteeda dhiirigeliso, in wax waliba oo nolosheeda ku saabsan mustaqbalkeeda hadaf ay ka yeelato. taana waa muhiim inaan wada ku baraarugsanaano. muuqaalka xiga ayaa noo balanay insha Allah. kanaalkan kusoo biira biidnillaah. waxaan idinka tagayaa nabad iyo barwaaqo. waxaan leeyahay meel walba dunida aad ku joogtaan farxad ku noolaada. qoysas walba waxaan leeyahay farxad ku noolaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.